marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirkii waxbarashada Jubbaland Macallin Maxamed Ibrahim oo ku geeriyooday waddanka India tacsidaas oo aan rabaa inaan u diro ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto gaar ahaan ummadda reer Jubbaland waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna ummadda reer Jubbaland samir iyo iimaan Allah ka siiyo gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii iyo awlaadii uu ka tagayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo inta kadib shirkanagan jaraa'id ee maanta wuxuu daaran yahay ama ku saabsan yahay isla tacsidaas wasiirka markuu ku dhintay meesha la yiraahdo India waa laga soo qaaday waxa la soo marsiiyay Addis Ababa shalay baa laga soo qaaday waxa la keenay magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho waxaan lagu wargeliyay mas'uuliyiinta ka soo jeeda dawlad goboleedka Jubbaland ee federaalka ka tirsan in ay xubno ka mid ah wax ka galbiyaan janaasadaas si ay u geeyaan magaalada Kismaayo oo aaskiisu ka dhici lahaa annagoo ah 3 senator Axmed Xaashi senator Iftiin Xasan Iimaan Baasto iyo anigoo idin la hadlayo senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaan ka mid ahayn mas'uuliyiintii lagu soo qoray diyaaradda si ay wax uga galbiyaan janaasadaas Allah u naxariistay Macallin Maxamed saasi la eg waxa ka mid ahaa wasiiro ay ka mid ahaayeen Maxamed Aadan Dhuubow iyo wasiir Ashkir iyo wasiir Mukhtaar iyo agaasimaha maxaa la yiraahdaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Axmed Nuur iyo mas'uuliyiin kale oo fara badan oo isugu jira saraakiil iyo mas'uuliyiin hore iyo kuwa hadda mas'uuliyadda dawladda wax ka haya ay ka mid ahaayeen markaan tagnay saaki 9kii barqanimo garoonka diyuuradaha diyuuradii meedka qaadi lahayd iyo diyuuradii waftiga qaadi lahayd galbin lahaa maxaa la yiraahdaa janaasada wax ka galbin lahaa markii la fuulay oo labada diyuuradba la istaaray ama la muxuu ahaa bayloodada ay dhaqaajiyeen diyuuradii aan saarnaa oo ka mid ah dadkii saarnaa markii albaabka loo soo xiray waxa uu yimid nin nalagu yiri wuxuu ka socdaa nabad sugidda wuxuu la hadlay bayloodkii diyuuradii waa la damiyay waa la isweydiiyey cabbaar baa meeshii agaasimihii ra'iisul wasaaraha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasiir Ashkir iyo waa muxuu ahaa arrintii bay dhex galeen cilada meel ka jirta muxuu ahaa yaa la raadiyay isla markaas haddana diyuuradii waa nala soo fuulay waxa la yiraahdaa dhammaan soo daga dhulka u soo daga dhulkan u soo dhacnay waa la isweydiiyey waxa la yiraahdaa sabab diyuuradii kale oo meedkoodii waa dhooftay maxaa midaan lagu haystaa sii wad soo wad war badan ka bacdi waxa la soo dhajiyay hadday saaran yihiin senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil iyo senator Iftiin Xasan Iimaan iyo afayeenkii hore ee Jubbaland Axmed Carab diyuuraddan ma bixis saasaad ku baaqanaysaan arrintaas markay dhacday waxaan weydiiyey amarkan yaa soo bixiyay xagees ka soo fulay waxa noola sheegay amarkan inuu ka soo fulay ama uu soo gaarsiiyay wasiirka duulista hawada nin la yiraahdo Omar iyo nabad sugidda Soomaaliya muxuu ahaa saraakiisha nabad sugidda Soomaaliya ama taliska nabad sugidda Soomaaliya amar ka soo baxay inay tahay noola sheegay arrintaas markay dhacday annagoo qiimeynayna marka wax badan dadka saaran diyaaradda oo muxuu ahaa janaasada u socday iyo isqabqabsi meedka korkiisa inaan ku booqno annagoo diidayno aniga iyo senator Iftiin waxaan go'aansanay inaan ka soo harno diyuuradda maadaama la go'aansaday maadaama ay muxuu ahaa mas'uuliyiinta ugu sarreysay ama muxuu ahaa wasiirka duulista hawada ha ahaado ama taliska nabad sugidda ha ahaadee haddii waxa isku ooleen inaan mataqaanaa ka harnaan go'aansanay intaas waa intii dhacday weeye oo aan rabay inaan ummadda Soomaaliyeed u bayaamiyo haddaan marka hoos soo dhaco waxaa nasiib darro ah waddanka Soomaaliya oo ogtihiin meeshuu marayo dhinac walba dhinaca caafimaadka iyo mataqaanaa haatan cudurka adduunka dhan ka socdo gaar ahaan dalka Soomaaliya ka socdo la dagaalankiisa iyo wacyigelintiisa hadday ahaan lahayd dhinaca nabadgelyada oo aad ogtihiin
mayd maxaa u dambeeyay mid kala sii wado xala u dambeysay garoonka diyaaradaha iyo xerada xalane ee cadawgii al-shabaab ay ku garaacayeen maxaa la yiraahdaa hoobiyaal iyo meel mar la yahay oo hoobiyaashii ay ku daadanayaan muxuu ahaa xaruntii ama airport-ka ahaato ama xarunta xalna ha ahaato waxa nasiib darro ah ummadda Soomaaliyeed nasiib darradu soo heedaa waxay tahay meeshay ka hadli lahaayeen nimankan filla Soomaaliya joogo oo ugu weyn yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ama wasiiradiisa ku jiraan ama taliskiisa nabadgelyada ha ku jireen intay ka hadli lahaayeen maxaa la yiraahdaa nabadgelyada intay ka hadli lahaayeen intay ka hadli lahaayeen koronaha iyo cudurka faafahaya intay ka hadli lahaayeen fatahaadaha iyo wax ka dhacay dalka Soomaaliya rafaad ka dhacay intay ka hadli lahaayeen inay ku mashquulaan diyaarad mayd wado oo tacsi wado hebel waa fuuli kara hebel ma fuuli kara inay ku mashquulaan waa nasiib darro Soomaaliya u soo hooyatay waxaan filayaa arintaas ayada ah waa arin aad iyo aad hadday ka qarsoonayd ummadda Soomaaliyeed haddii ay indho waaweyn ku arkaan u baahan wax kale umaana soconin inaan janaasaha soo aasno oo aan soo noqonno inta u soo duceyno ummadina u soo tacsiino maadaama aan sanatarada la soo doortay Jubbaland boqorshahna uu ahaa inay markii janaasada siyaasadeeyaan wax aad iyo aad loogu xumaado way intaas ummadda Soomaaliyeed inaan u bayaamiyo waxyaalaha ka socda dalka Soomaaliya mudooyinkan ama say wax ku wadaan madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo talisiyadiisa especially taliska nabad sugidda waxyaalaha aan ka aamusnayn oo dhagaha iyo indhaha aan ka haysanay oo hadda aan ka aamusi karin baa jiro maxay yihiin waxaas waxa gada ka socdo guud ahaan Jubbaland ka socdo gaar ahaan gada ka socdo wax laga aamusi kara ma aha gobol dhan oo gada la yiraahdo oo dawlad goboleedka Jubbaland ka tirsanaa oo shaqada laga soo qabtay la wada og yahay in la qabiyaaladeeyo oo la qabiileeyo oo madaxweynaha qaranku uu yiraahdo inta qabiilkayga deganaabaan gooni u waxaynayaa oo maxaa la yiraahdaa waa takooraya oo mataqaana intaasaan la go'ayaa waa arrin fool xumadeeda leh ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa gobolka Gada wuxuu ka tirsan yahay dawlad goboleedka Jubbaland kana mid ahaa dastuurka Soomaaliyana waxa ku qoran dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah gobolka Gada wuxuu ka tirsan yahay dawlad goboleedka Jubbaland waxaana waa taariikh wiil nabad sugid ah oo meel marayo oo iska socdo oo 30 sano aan ogeyn wax la soo maray meesha laga soo bilaabay wixii Jubbaland loo soo maray wixii gobolka Gada loo soo maray wixii Soomaaliya isku hadkeeda loo soo maray aan ka warqabin in uu yiraahdo maxaa la yiraahdaa waa goynaya oo saan raba ka yeelaya ma aha wax sax ma aha waxa u dul qaadanayna ma aha haddii la isqalaafay waa la wada hadli karaa wada hadal wax lagu daaweyn karaa laakiin xog baan ku maqooninayaa especially gobolka aan ka soo jeeday maalin hore oo kala tagayay saddex xildhibaan oo ka soo jeeda gobolka Gado yaa waxay damceen inay ka dhoofaan meesha la yiraahdo madaarkan ayagoo Gado u socdo waa la diiday ma bixi kartaan baa lagu yiri maanta aniga oo u socdo muxuu ahaa tacsidaas waa la diiday anoo senator oo xasanadeeda la liiday inaan ka dhoofo macnaheedu marka muxuu noqonayaa qabiilka aan ka dhashay yeesan dhaqdhaqaaq sameeyeen halkaas oo ina aadin waxa la joogo xilliga ummadda la isu keenay lahaa xilliga ummadda Soomaaliyeed isu keenay lahaa ee xilliga ummadda Soomaaliyeed la kala takoori lahayo hebel oo reebel baa tahay xagga aadin iyo hebel oo reebel baa tahay meesha aadin la dhigi jiray waa la soo dhaafay mar lagu noqonayo ummadda Soomaaliyeed anoo si degan ula hadlahayo waxa weeye gardarrada iyo baadilnimada iyo dib u dhaca meesha ka socota inaan farta ugu fiiqaan rabay inay fahmeen waa filahayaa haddii Ilaahay yiraahdo annagu reer Jubbaland 51 xildhibaan baan nahay deegaan doorashada marka laga reebo dhowr xildhibaan oo haddii howlahooda gaarka ah ilaa shanahaya inta kaleeto waxaa jira dad u qumahayo oo diyaar u ahaa inay u kala dabqaadaan haddii wax qaldameen Jubbaland haddii ka qaldameen iyo haddii federal ka qaldameen inay u kala dabqaadaan dad muxuu ahaa xildhibaano badan oo rabay baa jira waxa Gada ka socdo oo hadda Gada ka socda ama ciidamada la geeyay ee sharci darrada lagu geeyay ee madaxweynaha amar leeyahay iyo taliska nabad sugidda amar leeyahay ee sharci darrada muxuu ahaa meesha u joogo mataqaana loo dhiibahayo muxuu ahaa waxay rabeen sameynayaan sax ma ahan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan waa u tacsiinaya 4 sano waxa halaabay in si u halaabeena waa waxa hadda aan ka sheekeynayo oo waxa weeye xaajinimaan ogeyn baa xirmada ka ridee niman diaspora aha oo 30 sano iska maqnaa oo say meelaha u soo jiray laptopyo wata oo yimid ayaa wixii aan soo dhowbeynay oo muxuu ahaa xilliga Cabdiqaasim laga soo bilaabo
oo tartiib loo soo waday Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay laga soo bilaabo la soo marsiiyo oo Allah muxuu ahaa Cabdullaahi Yuusuf markuu dhintay hadana Sheekh Shariif la soo marsiiyay oo maxaa la yiraahdaa Xasan Sheekh Maxamuud loo soo dhiibay oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud meel fagaar ah ay ugu dhiibeen buug yar oo dastuur ah ayuu ahaa dastuurkii uu markaa ku tumanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asaga oo adeegsanaya taliskiisa nabad sugidda bal hadda idaacaddan ka hadlayaaye buuggaas dastuurka oo lagu doortay meesha ay ka qoran tahay senator aadaha dalkiisii oo tacsi wado in laga reebi karo muxuu ahaa waa la rabaa mana ka aamusayno ilaa maxkamadda sare waa isla soconaynaa ilaa maxkamadda Soomaaliya maxkamadeeda ugu sarreeya dacwaddan waa isla gaari doonaa maadaama aan maxkamadda dastuur haatan lahayn labada gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha maxaa la yiraahdaa golaha shacabka iyo gudoonada labada gole iyo baarlamaanka labada gole ee 329 ah dhammaantood waxaan u sheegayaa haddii saan lagu fiirsado waddanku wuxuu noqonayaa waddan faraha ka baxay oo meel god ku sii dhacayo haddii marka maalin kasto dibacadda mar la waxeeyo haddana dibi madoobo la waxeeyo dibi cala waxeeyo wax kala ku soo baxayo cadowgina waa naga faa'iideysanayaayo waa asaga xal elaboorka garaacay shalay bay ahayd wixii Sheekh Shariif la reebahay darad bay ahayd wixii Xasan Sheekh Maxamuud la reebahay tii ku xigtay ahayd wixii la reebahay xildhibaan Axmed Daqare iyo xildhibaan Alankay iyo xildhibaanada la socday Cabdi Cali iyo xildhibaanada la socday maanta way anagoo tacsi wadno waxna la reebahay haddii xildhibaanada labada aqal arintaas waxaan rabaa in ay si degdeg ah guddoonka labada muxuu ahaa labada aqal iyo xildhibaanada guud ahaan waxaan rabaa arintaas inaysan dhayalsanin oo ay u arkaan muxuu ahaa oohinta orkiga ka weyn waa lagu dayahayaa marka dambana waxa weeye albaabada loo xiray labada aqalbo berri bay yuu soo wadaa nimanka maanta arkay berri waxay rabaan labada aqal oo xiran inay dhahaan wax hadli karana ma lahan waxaan ku tala bixinayaa oo guddoonka labada aqal aan ka codsanayaa oo baarlamaanka dhamaantii aan ka codsanayaa arrintan in laga dhiidhiyo waxa ay nimankan ku jiraanna annaga waxaa Soomaalida tiraahdaa lax walba shilka isbitaal lagu qalaa meesha annaga aan xukuumadda la xisaabtami lahayn oo madaxweynaha la xisaabtami lahayn oo aan dhihi lahayn war waxaan sax ma ahan annaga asaga isu dhiibnay laakiin wali rajaan leenahay wali maanan quusanin waxaan rabaa in boorka la iska jafo xildhibaanada labada aqal ay boorka iska jafaan guddoonku uu horgalo min bilow ilaa dhammaad laga soo bilaabo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee xasanada lahaa ee sharafta lahaa maalintii boorka laga joojiyay iyo xildhibaanada ku xigay maalintii laga joojiyay iyo maanta oo annaga ay nagu dhacday annagoo tacsi wadno intaba waxaan rabaa muxuu ahaa in baarlamaanka ay toos uga hadlaan inaan loo kala harin muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya asagoo sharfan waxaan ka codsanayaa meesha uu muxuu ahaa isku mashquulinayo hebel waa mucaarad hebel isugu tagin inuu isku mashquuliyaan intii hore 7 bilood baa noo dhimanay sidii al-shabaabkan maanta weeraraya xaradan muxuu ahaa xalana weeraraya sidii aysan xamar ugu bixin lahayn oo aan meelaha u gaarsiin lahayn dhulkii nabadda ahayo gadoo dhab hadda dagaal ugu soo rogay markii dagaalka ay harmacad iyo geynayeen meesha la balaxa uu doolow waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa baabuurkii balaxa uu ka baxay doolow buu marahayay luuq buu tagay muddo muxuu hal saac amal u soconay haddana waxa weeye ugu yaraan hal maalin baa loo soconayaa iyadoo la ilaalinayo ama mina la ilaalinayo ama la ilaalinayo shabaabka oo dhaxda galayo ma horan u soconay mise dib baan u soconaa maya dib baan talaabo qaadnay waay ummadda Soomaaliyeed inay inta soo bayaamiyaan rabay guud ahaan culays baa saaran ummadda Soomaaliyeed Soomaali weyn culays baa saaran gaar ahaan Jubbaland culays baa saaran gaar ahaan ummadda uu ka soo jeedo madaxweyne Farmaajo oo aan ka mid ahay culays buu nasaarayaa si aan maxaa la yiraahdaa ummadda Soomaaliyeed wax loola qabsan waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed uu sheego wuxuu halaynayaa madaxweynaha asaga gooni ku tahay ummadda uu ka soo jeedo oo reer hebel weyn la leeyahay bari bay ka tahay ummadda Soomaaliyeed baa wax la qabsanaynaa ummadda Soomaaliyeed baa wax la leenahay ummadda Soomaaliyeed baa khayr iyo wanaag aan la leenahay wixii xun oo la sameeyay madaxweynaha haatan joogay iyo gaar ku tahay hadhow yaan leeyahay reebel oo dhanba arinta ka siman wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah alxamdulillaah marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan u tacsiyeenaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland wasiirkeenii waxbarashada macallin Maxamed Ibraahim ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana Allah u waasiyo bacdu tacsiy kadib waxaan maanta aad ugu xunnahay maadaama aan nahay xildhibaanadii labada aqal ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Jubbaland
oon safar u ahayn janaasada inaan kusoo tukanno oon tagno magaalada Kismaayo diyaaraddii meydka qaadaysay iyo diyaaraddii kale la socotay markaan diyaaraddii galnay nalaga hor istaagay sababo jira awgood taasoo sabab u ah in waxaad ka aragti duwan tihiin dadka maanta xukunka haya dalka dowladda dejiyay diyaaraddii anagoo ah xildhibaanadii senataradii ka soo jeeday dowlad goboleedka Jubbaland waa nasiib darro aad baan ugu xunahay wax meesha ka dhacay maanta falka meesha ka dhacay ilaa 3 saacadood ilaa 4 saacadood ku dhow meeshan lagu haystay waxa nasiib darro ah in fakarka dowladda maanta dalka ka talisa ee Villa Soomaaliya Villa Gardaran aan u bixinay aragtideeda ka duwan tihiin dowladda dejiyay diyaaraddii arrintaas waa arrin fool xun waa arrin ceeb ah waxaan leenahay ninka dalkan u dhiibay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo inuu Soomaali hogaamiyo maanta qof iga aragti duwan ayaan ka daba qaylinayaa waa nasiib darran leenahay maanta arrinta ayada ah Farmaajo maanta waxaan ugu fadhinay amniga dalka inuu sugo coronavirus-ka dalka ka socdo oo sugo colaad beeleedyada deegaanada ka soo cusboonaaday oo laba dawladda ay isku direyso ka wax ka qabto coronavirus ka qabto fatahaadaha ka qabto ummadda shacabka Soomaaliyeed garab istaago diyaaraddii sida xaqdarrada gardarrada loogu riday shacabka Soomaaliyeed ay saarnaan lagu xasuuqay ama bardaale lagu riday arrinteeda uu ka hadlaan u fadhinimoogii senator maanta aniga aragti duwan iyo xildhibaan aniga aragti duwan oo tacsi u socdo ayaan diyaarad ka reebayaa waxaan leenahay Soomaaliya I am sorry Soomaaliya I am sorry Soomaaliya I am sorry arrintaas waa arrin aad aan ugu naxno arrin nasiib darro ah u soo hooyay Soomaaliya anagu waxaan kula xisaabtami doonaa dalka maanta waxaan u dhiibay Farmaajo uma aanan dhiiban Fahad Yaasiin inaba sugidda talo uma aanan dhiiban insha Allah ta'ala sharcigan horgeyn doonaa maxkamadahan tagi doonaa xuquuqda muwaadinimo xuquuqda xildhibaannimo xuquuqda qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay in lagu tagto la yiraahdo maanta waad iga aragti duwan tahay waxaadna iga aragti duwan tahay saas diyaaradan tacsiid u socoto ma raacis waxaan leenahay waa nasiib darro aad baan ugu xunnahay inta dhimatayna Allah u naxariisto إن شاء الله تعالى أرنتان أرين عن كهر دون معه وأرين دبتاجناني دون إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته